السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيو ومحمد خضر واتكم هاتسنتهاي داوشة موقالكان waxaan idin wadaa qiso aad iyo aad u cajiib ah oo qurux badan run ahaantii aniguna aan wax ka faa'iiday aanan jeclahay idinkuna sidoo kale inaad wax ka faa'iidi doontaan hadduu ilaahay idmo. waxaa jiray tuulo ku taalay waddan ka mid ah wadamada dhaca xeebaha Afrika, waxaana tuuladaasi ku yaalay masaajid aan sidaa u sii weynayn. masaajidka waxaa imaam ka ahaa nin aad u wanaagsan, qur'aankana xafidsanaa, diintana wax ka yaqaanay, sidoo kale luqadaha maxalliga ahna wax ka garanayay. dadka tuulada degan waxay aad u jeclaayeen imaamka, way soori jireen, way soo dhaweyn jireen, wayna xurmeyn jireen, sidoo kale way qadarin jireen. qoys walba oo tuulada degan wuxuu jeclaa inuu maalin un sooro ama marti qaado imaamka. waxaa la gaaray bil Ramadaan, qoys walbana wuxuu jeclaystay inuu imaamka la afuro. habeenba wuxuu la afuri jiray qoys, habeenkii dambe waxaa la gaaray inuu la afuro qoys ka mid ah qoysaskii deganaa magaalada. qiso ayaana dhex martay, qisadiina waxay ku bilaabatay sida tan. imaamkii ayaa waxaa loo diyaariyey martiqaad aad u qurux badan oo aan horey loo arkin. salaadii maqrib markii uu ka soo baxay ayuu reerkii yimid, si qurux badan ayayna u soo dhaweeyeen, way wada sheekaysteen, meeshii ayaana lagu wada afuray. kadibna wuxuu baxay imaamkii isagoo u ducaynaya reerkii sida wanaagsan u sooray. cabaar markii uu imaamkii sii maqnaa ayaa haweenaydii guriga degganayd waxay tabtay lacag fara badan oo ay saartay miiskii lagu afurayay. waxay ka raadisay miiska, way ka weeday. sidoo kale waxay ka raadisay dhammaan qolalkii ku yaalay guriga, sidoo kale way ka weeday. waxay sugtay ninkeedii oo ku maqnaa salaada taraawiixda inta uu ka imaanayo. kadib ninkeedii ayaa yimid, waxayna weydiisay lacagtii inuu isaga qaaday in kale. wuxuuna ku jawaabay maya, waxba ma arkin. haweenaydii ayaa ku jawaabtay waxaa inoo yimid keliya imaamkii, waxaanan uga shaki qabaa inuu isaga lacagtii qaaday. ninkii ayaa aad u carooday, wuxuuna yidhi macquul ma ahan inuu imaamka lacagta qaado, waayo imaamka waa qof lagu daydo, sidee ku dhici kartaa inuu sidaa sameeyo. maalinkaa wixii ka dambeeyey ninkii wuxuu bilaabay inuu ka meermeerto imaamkii oo uusan la sheekaysanin, agtiisa ku tukanin, la hadlin, uu ka wareegan jiray. sanad kadib waxaa la gaaray bishii Ramadaan, isla habeenkii ay martisoori lahaayeen imaamka qoyska. ka hor inta uusan imaamka imaanin, ninkii ayaa xaaskiisa weydiiyey maxaynu ku samaynaa imaamka markii uu yimaado. xaaska oo ahayd qof wanaagsan ayaa ninkeeda u sheegtay inay iska cafiyaan, waxaana laga yaabaa ayay tidhi imaamka inuu lacagteennu u qaatay duruuf haysay awgeed, marka aan iska cafinno. waxaa macquul ah inuu Allah subxaana wa tacaala inaguna ina cafiyo. salaadii maqrib kadib waxaa yimid imaamkii, waxaana loo soo dhaweeyey si qurux badan, waxaana loo diyaariyey martisoor aad iyo aad u sarreeyo. markay afureen kadib, ninkii ayaa imaamkii ku yidhi miyaadan ogeyn inaan badalay dhaqankii hore? ramadaankii tegey ilaa hadda kulama dhaqmin sidii wanaagsanayd een kula dhaqmi jiray. ninkii ayaa ku jawaabay haa, waan dareemay, laakiin mashquul aan ahaa awgiis ma weydiin mana ku dabagelin. ninkii ayaa yidhi waxaan ku weydiinayaa arrin, waxaana doonayaa inaad si saxa iiga jawaabto. imaamkii ayaa yidhi waan kaaga jawaabayaa, iweydii. ninkii ayaa ku yidhi ma xasuusataa sanad ka hor habeen aad inala afurtay waxaa jirtay lacag islaantaydu ay saartay miiskii aan ku afuraynay. markii aad baxdayna way weyday, kadib miiskiina waa laga raadiyey, waa laga waayey, guriga dhammaan waa laga raadiyey, waana laga waayey. lacagtaasi ma adiga ayaa qaatay? imaamkii ayaa ku jawaabay haa, aniga ayaa qaaday. ninkii oo imaamka la yaaban korna u fiirinayo ayaa imaamkii wuxuu yidhi lacagtu waxay taallay meel daaqada, waxaana ka soo gelaysay dabayl, dabayshii ayaana kala firdhisay, aniguna waan isku soo ururiyey, waxaana idin dhexgeliyey kitaabka qur'aanka ah si ayna idinkugu adkaanin raadinteeda. imaamkii ayaa madaxiisa hoos u dhigay, wuxuuna bilaabay inuu aad u ooyo. wuxuuna ninkii weydiiyey ma garanaysaa sababta aan la oynayo? ma ahan inaad i tuhuntaan waxa aan la oynayo, balse waxaan la oynayaa in qoys dhan ay sanad dhammaystiran akhrinin kitaabka qur'aanka oo uusan jirin qof kala furo inke. ninkii ayaa istaagay, wuxuuna soo qaaday kitaabkii, wuuna kala furay, wuxuuna ka soo saaray lacagtii, wuxuuna kula soo laabtay imaamkii isagoo leh waxaa ballan ah inaan akhrin doono kitaabka qur'aanka ah maalin kasto. imaamkii ayaa yidhi haddii aad akhrin lahaydeen qur'aanka mar kasto, lacagtiinnana waad heli lahaydeen, ajir fara badanna waad heli lahaydeen. sidoo kale wakhtiga aan casharada in siinayo waxaan idinkula dardaarmaa inaad qur'aanka mar walba akhrisaan, annagoo xasuusanayno xadiidkii nabigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasallam uu yidhi iqra'u alqur'aan fa innahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi. akhriya qur'aanka, wuxuu imaan doonaa maalinta qiyaamo isagoo u doodaya asxaabtiisa, yacnii dadkii ku akhrin jiray adduunka. run ahaantii waa qiso aad iyo aad u cajiiba. waxaan inkula dardaarmayaa inaadan hilmaamin kitaabka qur'aanka oo uusan aakhiro xujo kugu noqonin, ee adiga xujo uu ku noqdo. allaahumma ajcal ilqur'aana xujatan lana laa calayna.
fadlan haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray sii faafi waxaa macquul ah qof adigoo kale inuu ka faa'iidaysto sidaan ugu faa'iiday inaad idinkana ugu faa'iidaan ayaan rajaynayaa insha allah weligaa ha mogaanin akhrinta qur'aanka